أود أن أقدم تحياتي إلى سعادة السفير القطري الشقيق لدى الصومال والوفد المرافق له. ثانياً أحب أن أقدم الشكر والتقدير لدولة القطر شعباً وحكومته لمساعدة شعب الصومال التي تقوم دائماً لجنبنا. هذا هو مركز من المراكز الصحية ومراكز إغاثية التي تقوم الدولة القطر دائما لشعب الصومال. هو مركز صحي للأمومة والطفولة الشعب الصومال، وخاصة شعب محافظة بنادر حي دركين لي. أيها الإخوة الكرام، نرحبكم ونشكر لكم مساعدتكم التي أنتم تقومون دائما لشعبنا. هذه كلمتكم، وأود أن أقول كلمة إلى الشعب الصومال الموجودين في هذا المكان. walaalyaal, waxaan maanta u joognaa halkan inaan xarig jarno xarunta hooyada iyo dhallaanka Dharkeynley waxdeeda shanaad ee Kaawgoday. waxaad ogtihiin muddo bilaa ka hor inaan halkan xarig jarnay, aan dhagax dhignay ayaan ka wadaa. maantana aanu joogno xarig jarkeedii. waxaa loogu talagalay in loogu adeego dadkeena dayarta ah, waxaana ku saaciday walaalaha aan dhabta nahay, walaalaha dhabta ah ee Qatar, kuwaas oo daa'iman dadka Soomaaliyeed garabkooda taagan wax kasta oo ay u baahan yihiin. walaalayaal, waxaa laydinka rabaa sida walaalihiin idin garab taagan yihiin inaad uga faa'iidaysataan, laga shaqeeyo xaruntan si wanaagsan looga shaqeeyo, dadka aqoonta u leh ay ka shaqeeyaan, looguna adeego hooyada iyo dhallaanka reer Dharkeynley, gaar ahaan reer Kaawgoday. waxaad ogtihiin meesha aan taaganahay inay tahay deegaankaygii oo aan aad ugu faraxsanahay maantay. inkastoo banaadir oo dhan deegaankayga ay tahay, haddana xaafaddii aan deganaa maadaama ay tahay, si gaar ayaan ugu faraxsanahay in maantay la idin sameeyo ama la idin dhiso, la idin xarig jarana MCH-ka. war badan nooma harin, mas-uuliyiintu waa mashquul. intaas ayaan rabay inaan idin idhaahdo. wabilaahi tawfiiq. waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo mas-uuliyiinta Dharkeynley iyo ku-xigeenkayga arrimaha bulshada Basma Caamir, oo iyaduna mar walba u taagan fulinta waajibaadkeeda. wabilaahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.